madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug u magacaabay Faysal Sheekh Cali Maxamed kaasi oo bedelaya gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdilatiif Sanyare oo loo doortay xildhibaan golaha shacabka. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash kuna taariikhaysan 24 Abriil 2022 kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha gobolka Mudug. kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay baahida shaqo ee jirta, markuu tixgeliyay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa shaqo, wuxuu u magacaabay Faysal Sheekh Cali Maxamed gudoomiyaha gobolka Mudug. xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu saxiixo kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Puntland uuna saxiixay. waa magacaabistii ugu horeysay uu sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee dhawaan sheegay inuu la wareegay xilka madaxtinimada Puntland xilli madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo Muqdisho u joogo doorashada madaxtinimada Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay musharax xilka madaxtinimada Soomaaliya. Ismaaciil iyo Buro Xasan, wararka muuqaal baahiyaha SBTV magaalada caasimadda ee Muqdisho.